الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sidaa qoraalka idinka muuqdo waa su-aalihii jawaabo walaalihii facebook habeen hore aan soo diyaariyey su-aalihiina waaye maadaama xalay iga sugaysa laakiin raali noqda mashquula soo galay caawa aniga idiin wada su-aalihiina iyo jawaabooda insha allah. mid kale su-aalaha aada ay u badnaayeen inkastoo marka qoraalada iska badnaayeen in qaarkood waxay iska hayn salaan marka sidaa darteed intii su-aalahooda aan ka gaara hadda waa soo qaatay intii aan ka gaarayna insha allah beri muuqaal kale soo sameynaa inkastoo inta badan su-aalaha qaarkood axaadiis nafsi u badan yihiin. midaad kale walaalayaal qaarkood waxaa waye 4 sano ka hor su-aal ahayd yacni riyo ahayd kuwaasoo kale muhiim maahan idinkoo raaliya yani su-aalaha cusub riyooyinka cusub ayaa wanaagsan waaye 4 sano ka hor wax badan ayaa soo dhaafay. almuhiim qofka ugu horeeyay wiilkaa wuxuu yidhi waxaa ku riyooday anigoo calool qof horta magacnimada wataa ragga dumar wuxuu yahay ma sheegin qoraalkiisan halkaas idiin soo saara insha allah. wuxuu yidhi waxaa ku riyooday anigoo calooshii xanuunayso wuxuu yidhi kule waa qof dhina wuxuu yidhi South African joogaan ka shaqaystaa. almuhiim calool xanuun maxay tilmaamay calool xanuun walaalayaal ma fiicna calool xanuun badanaa waxay tilmaamaysaa xoolo xaaraana horta calool xanuun waa xoolo badanaa xoolooyin xoolahaaga ayay ka hadlaysaa mise xoolo kale xoolo xaaraanay noqon kartaa wacayaadu billah waxay noqon kartaa xoolo riba ah mise xoolo agoomeed subxaan allah mise xoolo amaano ah yacni calool xanuun haddaa aragtid waxaa wanaagsan inuu qofka dib iskugu noqdo waxaa ka qaldan waa la hadlay aniga wiilkaa ima soo jawaabin. midalka walaale waxaa codsanaya inaad cod ii soo duubtaan qoraalka dheer waxaa ka fiican cod hadda qoraalkan oo kale inaad soo qaataa rabaa laakiin ma aqaan hadhow markaa idingareynaa soo saari doonaa insha allah wuu dheeryahay qoraalka marka qoraalka maadaama uu dheeraanayo waxaa sameysaan cod ii soo duuba. gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday su-aasha labaad gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday ninkeyga oo wax ii ballan qaadayo caadi ahaan kuley waa la qabaa haddaad ku riyootid ninkaaga wax kuu ballan qaadayo kole wuxuu ku ballan qaadayo maxay ahaayeen waxaa fiicneed wuxuu ku ballan qaadayo haddii aad reer dhexdii xasuusatid inaad sheegtid. ninkaaga wax kuu ballan qaadayo waxay noqon kartaa rajo aad leedahay rajo aad isaga ka filaysid oo kuu rumoobeys yacni waxay kaloo noqon kartaa hadallo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan asiga aad ka filaysid mise ficlan inuu waxba kuu ballan qaaday isbedel aad ka sugaysid ayay noqon kartaa rubama ee arrintaa kuu rumoobi doonta walaalayaa sidaa hore aan u sheegnay riyada waxaa layidhi waxay saaran tahay baalka shimbirta saasay yidhaahdeen culimmadu wax fasirayeen marna way dhexaysaa marna ma dhexaysa inta badanba horta riyada xun ayaana dhacaynay riyooyinka way wanaagsan way rumoobaan waayo riyooyinka way wanaagsan xagga rabbi ay ka ahaadeen wallaahu yaclam. nambarka 3 gabadhaa waxay tiri waxaan ku riyooday mar anigoo garoob ah anoo single mother ah marna waxaan ku riyooday tiri anigoo dumaalayo dumaal waxaa waay maahana marka uu ninka kaa dhinto walaalkiisa guursanayso kale okay horta haddaa u imaado tan koowaad oo ah adigoo maxay ahayd garoob ah riyada dhexdeeda aadna cadi ahaan lagu qabo riyadaa waxay tilmaamaysaa ficla xaalad nafsi ah oo qofka la nool yahay rubama xaaladan noocyo badanay noqon kartaa isbedel nololeeday noqon kartaa wax la-aan iyo maxay ahayd jeeb xumo qofka lasoo daristay noqon kartaa arrimo culus reerka saytika ku saabsan oo markaa aada la nooshaa way noqon kartaa maadaama riyada qof walba xaalkuu ku sugan yahay ay tahay waana xaaladaada aan ku wareysanin waxay noqon kartaa cabsashaa oo cabsanaysid guurkaaga gurigaaga way noqon kartaa mise ficlan inuu arrimo khatara uu ku sugan yahay matalan guriga markuu dhibaatooyin wax ku jiro guurka sayta khatar soo food saaran tahay riyooyinkan oo kale laabudda inaad riyo ku aragtid. riyada labaad gabadha waxay tiri walaalkiisa oo idumaalay yacni ninka iyadoo la dumaalay rubama taa ficlan horta riyada siday u dhacaysa maahan sidaad riyada u arkaysid uma dhacayso matalan haddii fure aa ku riyootid in lagu furaayo kale haddii walaalkiisa ku dumaalay inuu ficlan ninkaaga dhimanaa walaalkiisa ku dumaalay ma noqonayso waxay noqon kartaa bilcakas yacni arrimo qawi ah xoog badan inay idinka dhexeeyaan walaalkiisa
wanaag badan iyo cuseen inuu kuu haayo maadaama dumaashidiisa aad tahay. rubama xataa uu yahay garab aad isku halleyn kartid haddii matalan ninkaaga liwaamis wax ku dhaca. wax kale way tilmaami kartaa inuu ninkaa arrimo safari wax ku jiro, yacni hoolo ku jiro, mise aad ka baqanaysid inuu kaa fogaado waayitaankiisa, kaa fogaashihiisa hataa soo kula jooga. wallahu yaclam. riyada intaas ayay tilmaamaysaa. ilaaha nooga aqoon badan. su-aasha 5 iyo 6 baan dhaha. gabadha iyadan 2 riyo ay wadataa. maxay ahayd gabdhaha qaarkood 3 riyo ay wateen, laakiin qofka ugu badan 2 riyo aanu soo qaaday si oo muuqaalka nooga filnaado anigana aan maxay ahayd aan waqti uga helo. almuhiim gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday dayaxa oo weyn oo wejigayga u soo dhow oo iftiinayo qurux badan, yacni gudihiisana dayaxa waxaa iga dhex muuqday sidii xidig oo kale, calaamada yacni xidigta. waxay tilmaamaysaa horta qaar badan, ficlan nuur badan. waxay tilmaamaysaa guur, mise inuu xiriir kuu soo bandhiganayo, mise arrimo guur. qof oo sha'ni leh, qof yacni mudnaan leh, qof yacni maasha allah makaan sare jooga. qofkaasoo yacni is leedahay qofkaa, mise hataa dadka ay isleeyihiin qofkan guur ayuu ku fiican, yacni qofkan waa qof la ogolaan karo, qof mas-uula, qof mise xoolo leh. wallahu yaclam, yacni waxay doonta ahaat waa guur. haddii aanan ahayn oo hadda aad leedahay guur waxaa iguma jira, mise hataa yacni qofka la qaboo kale. waxay tilmaamaysaa gabaraan ahay tiri amaleyna maqaan waa qoray. almuhiim waxay kaloo noqon kartaa mataqaana nolol isbedeleysa, nolol aada u wanaagsan, maadaama xidig ay ku dhex jiray dayaxa dhexdiisa. nolol oo ah mudma-in akiida, yacni xasilooni leh. su-aashan kale gabadha waxay leedahay waxaan ku riyooday qof dhintay aan aqaano oo markuu dhimanaya inay tirada yacni sodomiyadu ku dhawaa oo 22 jir ahaa, oo hadda markaa riyada ku arkay inuu u ekaa inuu 20 jir yahay. caadi ahaan markuu dhimanaya 27 jir meelahaas oo ahaa. marka waxay tiri soo 20 jir inuu yahay camal u muuqdo oo haddana dhool cadeynayo ayaa riyada ku arkay. ana waxaan xirnaa toob cad. bacdeen wiilkii wuxuu isku dayay inuu kor ii qaado, anigana maya ma qaadi kartid ayaan lahaa. almuhiim riyada way dheer tahay, idin soo kooba. horta lambarkow meydka oo dhool cadeynayo waa riyo fiican. aragtida meydka dhanaaba riyo fiican ah, waayo waa riyo run ah, ma noqoto riyo been ah, lian wuxuu ka yimaaday daartii xaqa aheyd. aragtida meydka waa riyo wanaagsan, waa ficlan waa riyo fariin ku wadaysa mar walba. wiilka waxaa macquula in caaqiradiisa ay wanaagsan tahay oo siday u caddahay muuqato weliba iska caddahay. meydka oo da-da uu jiray oo ka yaryahay oo ka dhalinyaraysan yahay waa inuu daarta aakhira dhibaato aan ku qabin, asagoo dhoola cadeynaya. sidoo kale rubama wiilkan saalix ahaa, allah u naxariisto muxuu riyadiisa asigoo ku qaadaya. rubama rabbi kaa xafdina arrimo adag, culeysyo adiga ku haaya, humuum iyo mashaakilo iyo ciriiriyo culeysyo jira. ficlan gabadhan waxay ii sheegtay inay xaaladaad adag ay soo martay, yacni midaasay tilmaamaysaa. riyo kaloo cabsiya maaha, isbedel nololeed iyo xagga rabbi inaad ka xafdisan tahay. toobcad maadaama xirneed waxaa waaye dhoorsanaan iyo cafaafa oo tahaara. sidoo kale ximaaya xagga rabbi, inaa xagga rabbi aad ka dhoorsan tahay. wallahu yaclam. gabadha riyada halkaasa nagu baxa. gabadhan kale waxay tiri riyadan 7 gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday iyadoo meel dad badan fadhiyaan oo anigana shaahi u shushubayo, dadka u muuqata inay shaahiga ka heleen. horta lambarka riyada waxaa muuqata munaasabad wanaagsan inay naftaada kusoo biiri doonto, waxay doontaba haato. munaasabada waxay noqon kartaa guur, mise qalin jibin haddaad tahay qof wax barta, adiga nolol cusub, munaasabad meel laiskugu imaan doono oo dadka dhan raalli kaaga noqon doonaa insha allah biidin illaah. waxay kaloo tilmaamaysaa irsaaqad, mise wax rabbi ku siina aad dadkan la wadaagi doontid haddii adigaa wax meel ka filaysid ay jirto kale. sidoo kale riyada waxay cadeynaysaa qalbigaaga inuu yahay nadiif. waxay kaloo tilmaamaysaa hadal wanaagsan iyo kheyr badan kuu soo socdo. wallahu yaclam, yacni riyada aad ay u wanaagsan tahay. caadi ahaanba walaalayaal shaahiga riyadiis way wanaagsan tahay. sidoo kale waxaa wanaagsan wax walboo macaan, yacni shaahiga sokoraa ku jirto soomaa, wax walboo macaan.
waxaad aragtay inay dadka shayga yacni ay ku faraxsanaayeen oo cajiibiyey dhadhankiisoo kale inay dadka raalli kaa noqon karaan inay dadka raalli kaa noqonayaan wallaahu yaclam yacni waa riyo fiican rabbi ha kuu rumeeyo gabadhan waxay tiri 4 sano ka hor riyo aan ku riyooday riyadaasi waxaan usoo sameyn doonaa muuqaal u qaasa horta qofkaan laag saarin laag ka saaro qofkii maxay ahayd subscribe u hena ha yeelo iskana shaargareey isbedel badan aa arkay mahadsantiin gabdhow walaalayaal sababtaani gabadhaas ugu soo sameynaya muuqaal u qaasaa waxay tahay riyo adi beri hore aad ku riyootay haddii maanta laguu fasiro maxay saameyn noloshaada ay ku leedahay midaas ayaa rabaa dad badan aan fahansaneyn inaan u jawaabo hadda ka horna janankii hore dad badan aa iga soo su-aali jiray sidaa darteed marka waxaan jeclaystay gabadhaaniita darteed inaan hal muuqaal gooniya u soo sameey qof walba oo su-aal wata qeybta komitiga igu soo qoro qofkii ilaa aan sugi karin ilaa sabtigana waa insha allah qeybta asxaabta facebooka ilaa sabtiga ilaa gaaraya qofkii su-aalishiis daruuri tahay halkan qeybta komitiga ugu soo qori doonaa insha allah wiiga gudihiisa ugu soo jawaabi doonaa wassalaamu calaykum